waa maxay sababta uu qof waliba u inkiro guurka Serena Williams? Serena Williams iyo Alexis Ohanian waxay qayb ka yihiin lamaanayaasha caalamka iyadoo haysato 23 rikood oo aad u weyn. Waxa ayna markii labaad ku guuleysatay female athlete sanadkii 2017, halka Ohanian isaguna uu yahay ay aad howlihiisa u badan yihiin. halka labada lamaane ay yihiin kuwa aad isugu faraxsan iyo xiriirkooda intuba. caalamku waxay la noqotay cajiib, su'aalo fara badan ay weydiiyaan. inta badan aan waqti helo iyaga ayaa i weydiiya sidee ayaad ku guursatay Serena Williams? midaasi caqli gal ma ahan iyo arrimo la xiriira ayay i weydiiyaan. Williams iyo Ohanian sheekadooda jacayl waxa lagu qiyaasaa inay tahay mid buug laga qori karo, balse ma ahan sida saxda ah wax la qiyaasi karo. Williams iyo saygeeda Ohanian ayaa markii qaar waxa lagu tiriyaa inay yihiin kuwa aad isugu xishmeeya, waxayna bilaabatay goortii ugu horeysay ay wada kulmeen. Ohanian waxa uu qirtay in ay jiraan, balse uusan wax badan ka ogeyn. Championka Serena Williams ayuu la socday mararka qaar. sidoo kale Alexis Ohanian ma uusan xiiseyn sportiska nafsad ahaantiisa. anigu waligay ma daawan television noloshayda, sidoo kale xaqiiq waxba kama aanan garanayn. tenniska waxaa yiri Alexis Ohanian. inkastoo la qeexay haweeneydan caanka ah ee Serena Williams waqti ay ku guuleysanaysay Grand Slam, xilligaa waxay Serena Williams ahayd xaamilo. kadib Serena gabadheeda ayaa ku soo biirtay dunida sanadkii markii uu ahaa 2017. khibradeydu ma ahayn mid wanaagsan, laakiin haddii aad dunida ku soo biirtay waa shaqadeeda aad baan ugu faraxsanahay, maadaama aad isiisay farxad weyn. sidoo kale waxaad igu abuurtay awood xoogan. Serena Williams ayaa ku soo qortay barteeda Facebook markii ay dunida ku soo biirtay gabadheeda. Ohanian waxa uu mar kale saxaafadda u cadeeyay jacaylka uu u qabo xaaskiisa. had iyo jeer lamaanahan oo lagu tiriyo lamaanayaasha caalamka kuwooda uu yahay jacaylkoodu mid daacada. dad fara badanna ay aad ula socdaan xaaladda iyo sida ay ku sugan yihiin labada lamaane ee qabsaday caalamka adduunka.